xaruntaani waa xaruntii ay ka soo aasantay isbedel doonku siday uga soo hadleen waa xaruntii madaxweynaha macalimiinta ka keenteen waa xaruntii anagu xaqiiqiyan ma anagu xoog dalka baawurtii ugu horeysay markaan keenaynay oo gudoomiye anjax noo hadlay gudoomiyaha gobolka Nooha baawurtii ugu horeysay waa meeshan keenaynay oo inta aan u dadaalayna inay dhisanto waxaan ogeyn xaruntan inay noqonayso xarunta isbedel doonka dadka reer Garbaharey bulshadiina waa dad xalaari ah oo ogal nidaamka dawladnimada maxaan marka ani madaxweynaha maanta u taaganahay booqashadeenu maxay ku salaysan tahay dadka iska docyeerka oo dhinaca ka hadlaya oo system lahayn oo waxay ka fikirayaan ba aanan aqoonin inaan reality u sheegno magaaladan ay ku leeyihiin doorasho lagu ma qabanayo 8 saac habeenimo xal iska wareegay togaasan dhinaca kale u goynayna xaqiiqiyan idin sheegayna doorasho meel lagu qabto oo ka amni badan ma jirto haddaan idin sheegayna muhiimadda kaliya waan ognahay dadkan inay yihiin dad xalaari oo dadkii soo dhaweey waxaan ilka rabaa marka reer Garbaharey waxaa tihiin xarunta gobolka maadaama ay xildhibaano ay imaanayaan oo lagu dooranayo oo si qaran loogu dooranayo oo aad ogtihiin sidoo gudoomiye idin sheegay kuwa badan inay u calaacaleen maalin walba leeyihiin warniyo meesha in la isku dilaan ka cabsanaynaa intay adkeysan waayeen inay warqado qoraal waasiyadoodii iyo inay saadintooda ay leeyihiin Garbaharey kursigeena hal la geeyo ay ku soo qayliyaan bulshadaas noo qaylinaysa inaan cadaalad u soornaan rabnaa oo inta ay imaadaan oo ay ku raaxaystaan oo si xor iyo xalaal qofka ay rabaan oo ka turjumaya turjin xalaal ah oo aanan caburin ku jirin oo dimuqraadiyad ku dhisan oo human rights ku dhisan oo islaami oo qofka muslimka xuquuqdiisa loo ogol yahay inay isku soo doortaan Jubbaland taas waanu rabnaa taas aanu ka turjumaynaa si taas loo helo waxaan ilka rabaa soo dhawaantiina inay number 1 noqoto anagu maxaan joognaa amni kama walwalsanin oo soo dhaweyntiina kama walwalsan xaqiiqiyan marka idin sheegnay madaxweynaha waa sooreysane waxaan ila xoogaa qashinka magaalada inaan nadiifino xoogaa soo jiidano dadka iyo xoogaa guriga in laga baxo muhiimaddu waa intaas meeshan wax badan ay u baahan tahay marka assessment ku sameeyay malahan marka runtii isu sheeg marka magaaladan aan isla nadiifsano guriyaha qaar kood aan isla riijeyno magaalo hooste garayso oo wax soo jiidata aan ka dhigano muhiimadda inta ka dhiman waa intaas amniga waa 100% sidoo og yahay maanduuluhu maadaama amniga siyaasadda u qaabilsanahay waa isla shirnay amniga shir amni aan qabsanay gooniya waxaan idin sheegayaa wixii ka bilowda Brito inaan sameyn doono operation gaaraya ilaa 40 kilomitir ilaa 50 kilomitir ilaa 60 kilomitir oo laga bilaabo Brito ayna istaagi doonin ilaa xildhibaan walba aan ka soo doorano dameerka soo galaya gaariga soo galaya qofka lugaynaya degmadan amnigeeda wixii Brito ka bilowda say ahaan jirtay anagoo habeenkii lugaynayna inaan ka sii 100 jibaarno inaan tusno Garbaharey waxay tahay laakiin waxaan rabnaa shacabkiina inaan idin la shaqeyno oo aad nala shaqaysiin oo aad noo soo warantiin oo meeshan aan ka dhigno meesha ugu amni badan gobolka